dagaal ka dhigan nolol iyo geeri ayuu ku jiraa si uu badbaadiyo aabihiisa. wiilkan aanan halka cadow lahayn ee miskiinka wuxuu isku bedelaa gaangister dhigiicab ah oo aad looga baqo si uu u badbaadiyo aabihiisa oona u burburiyo cadowga aabihiisa. laakiin sidee ayuu ku badbaadinaya aabihiisa oo uga hortegi doonaa cadowga isku duwan? kusoo dhawaada filimkeena maanta. filimkan waxaa lagu magacaabaa Animal. magaciisa ayaa ka fahmaysaa filimka inuu ku saabsan yahay xayawaannimo. inaa filimka idinka soo dhex gala laakiin dadka janaalkan ku xiran 96% subscribe ma saaran. haddaa weli janaalka subscribe dheen fadlan janaalka subscribe dheh. waxaan arkaynaa wiil yar oo lagu magacaabo Balbiiq oo aad u jecel aabihiisa. wuxuu aad ugu waalan yahay jacaylka uu qabo aabihiisa. wiilkan waxaa dhalay ninka ugu taajirsan Hindiya oo dhan. wiilkan wuxuu u soo ordaa guriga si uu ugu hambalyeeyo aabihiisa oo maalintaas dhalashadiisa tahay. laakiin markuu xaafadda yimaado wuu weynaa aabihiisa wuxuuna weydiinaa hooyadiisa waxayna ku dhehaysaa wiilkaygii oo aabbaha uu iska mashquul badan yahay ee waxaa laga yaabaa inuu warshada ku mashquulshan yahay. wiilka wuxuu u soo ordaa dhankaas iyo warshada asagoo aaba jacaylka buuxo. laakiin mar kale wuu ka weynaa warshada wuxuu u soo laabanaa guriga asagoo niyadjabsan wuxuuna galaa qolkiisa waxaana la tagaysa hurdo. balse intuu seexan ka hor aabihiisa wuxuu u reebay fariin ah inuu aad u jecel yahay sidoo kalena ugu hambalyeynaya dhalashadiisa. intaas kadib waxaa imaanaya aabihiisa. hooyadiisa ayaa u sheegaysa inuu wiilkooda waqti siiyo wuxuuna galaa qolka wiilkiisa yaraa wuxuuna ku arkaa gacanta wiilkiisa waraaqada uu wiilkiisa u qoray oo gacanta ugu jirto uuna aqrinaa balse aabbahan oo aabba aan jecleen waxyaabaha maalayacniga ah oo kasii soconaa. muddo kadib waxaa arkaynaa adigoo janaalka subscribe dhahay waxaa arkaynaa wiilkii oo weynaaday. walaashiisa ayaa iskuulka lagu soo foodeynaya waxaana kusoo foodeynaya wiilal uuna raaca wiilasha si uu uga soo celiyo adigaba sidaa walaasha wiilasha ugu soo celiso. markuu hortooda imaado oo galaaska soo hor istaago way ku jejeesayaan wixina dhahaya makan baa noo soo wadatay oo tacbaanka ah. wuu xanaaqayaa kadibna wuxuu soo qaadanayaa qori AK-47 fasalka ayuu xabad ku dhex furayaa wuxuuna dhahayaa aaway kuwii walaasheeda foodeeyey. wuxuuna u sheegaya inay maqan yihiin. waxaas uu sameeyey walaashiisa ayaa aad ugu xumaanayso waxayna dhahaysaa inaad sidaas samayso kuma soo wadan. intii waddada socdeen ayaa waxaa qashqashaadaya dhalinyaro mooto wadato isagana gaariga ayuu mar dhinac ugu dhufanaya asagoo si xun laamiga ugu jiidayo. waxaa arkaynaa aabihiisa oo aad u canaananayo falkii uu sameeyey darteed balse wiilkan oo ah mid madax adag waxaas wax kama soo qaadayo canaanta aabihiisa. sanada kadib waxaa arkaynaa wiilkii oo aad u weynaaday wuxuuna u tagayaa saaxiibkiisa oo loo farantigelinayay. markuu arkayo wuxuu sheeganayaa inuu jecel yahay wuxuuna ku dhahayaa fursad ayaa haysata ay rabtid aniga ay soo raaci kartaa. kadibna wuxuu imaanaya xafladda familka ay dhiganayeen meeshaasna waxay iskugu dhacayaan siidigiisa. arrinkaasna waxaa aad uga xumaanaya aabihiisa wuxuuna ku dhahayaa siidiga raaligeli balse Balbiiq madax adeegiisa darteed uu diidayaa inuu siidigiisa raaligeliyo. madax adeegiisana wuxuu u sababayaa inuu guriga ka buriyo aabihiisa. sidoo kale wuxuu la kulmayaa saaxiibtiisa oo guriga laga soo buriyey waxayna go'aansanayaan inay isguursadaan balse aabihiisa uu diidayaa inuu guuriyo. kadibna wuxuu guursanaya asagoo keligiisa ah. kadibna waxay aadayaan Mareykanka oo meeshaas ayay ku noolaanayaan. muddo kadib waxaa loo soo sheegayaa in aabihiisa lasoo weeraray oo la dhaawacay wuxuuna si degdeg ugu soo laabanayaa Hindiya. balse markuu u tagay isbitaalka aabihiisa ku jiro waxaa hor istaagaya siidigiisa oo ka celinayo inuu u galo aabihiisa asagoo diidaya inay meesha rabshad ka dhacdo ugu soo baxa asagoo banaanka fadhiya ayna la socdaan xaaskiisa iyo labadiisa cunug. waxa uu imaanaya adeerkiisa wuxuuna weydiinayaa sababta uu halkan u fadhiyo wuxuuna u sheegayaa wixii meesha ka dhacay. intaas kadib waxaa loo geynayaa aabihiisa wuxuuna barayaa xaaskiisa iyo labadiisa cunug waxaana loo sheegayaa in shaqaalaha shirkadda ay cabsanayaan. kadib weerarkii aabihiisa loo geystay wuxuuna tegayaa warshada aabihiisa wuxuuna u ballan qaadayaa inaysan jirin cid kusoo xadgudbi karta warshada sida ugu dhaqsiyaa badanna lagu soo qaban doono ciddii ka dambeysay weerarka aabihiisa. wuxuu kaloo sheegayaa go'aan adag oo ah hadda iyo wixii ka dambe inuu maamulka shirkadda oo asaga la wareegay. wuxuuna imaanayaa tuulada qoyskiisa wuxuuna dhahayaa waxaa rabaa inay aabahayga ilaaliyo u noqotiin. waxayna dhahayaan sababa annaga noogu imaaday adiga ilaaliyo badan ayaa aabbaha u samey kartid. wuxuuna dhahayaa idinka qoyskiisa oo kale ayaa tihiin naftiinana waa u horreysiin. sidaas ayuu ku samaysanayaa tiim wuxuuna samaynayaa si uu ku ogaado cidda ka dambeysay weerarka aabihiisa. wuxuu keenayaa nin u eg aabihiisa wuxuuna barayaa habdhaqanka aabihiisa si aana looga shekin. sidoo kalena waxaa aad looga shekinayaa dadkii u dhadhawaa waxaana ugu horreeyay siidigiisa maadaama uu siidigiisa aabihiisa u yahay burcad weyn. inaa filimka idinka soo dhex gala haddaa weli janaalka subscribe dheen fadlan janaalka subscribe dheh. maalintii xigtay booska aabihiisa wuxuu ku bedelayaa ninkii u eka aabihiisa. markuu baxo oo bilaabo shaqooyinka waa lasoo weerarayaa. dagaal dheer kadib waxaa lagu guuleysanayaa ninkii aabihiisa u eka inay dilaan ayagoo si xun u dilaayo. loo maleeyo inay dilayaan ninkii saxda ahaa. markii meydka xaafadda la keenay siidigiisa ayuu wuxuu arkaa inuu nool yahay weli wuuna naxaya wuxuuna wacayaa ninkii qorshaha isla ogaayeen balse Balbiiq wuxuu dhegaysanaya dhammaan dadka meesha jooga moobiiladooda. kadibna waxay isla hadlayaan ninkii qorshaha isla ogaayeen. kadibna wuxuu u sheegaa in ninkii dileen oo ahan ninkii saxda ahaa ay la rabay inay dilaan.
balse ay dileen nin u eg wiilkiisa uu kiisiiyey. Balbiir sidaas ayuu ku ogaanayaa sirta Siidigiisa, wuxuuna dilayaa Siidigiisa isagoo u jixinjixinin oo aba jacaylka buuxo, wuxuuna weerarayaa kooxdii ka dambeysay weerarka aabihiisa. Waxaana dhex maraya dagaal aad u dheer ayagoo isku adeegsanaya hubka noocyadooda kala duwan oona meesha dhiig badan ku daadanayo. Ugu dambeyn wuxuu ku guuleysanaa dagaalka asagoo isdhahaya waa guuleysata ayaa hal mar la gaadaa, asagoo xabada lagu furayo, asagoo la dili raba ayaa waxaa kasoo gaaraya ciidamadiisa oo ninkii ayay halkaas ku dilayaan, balse waxaa soo gaaraya dhaawacyo aad u halis badan oo ah inay dhegihiisa iyo wadnihiisa wax kasoo gaaraan. Aabihiisa ayaa aad uga xumaanaya wuxuu sameeyey wiilkiisa. Sidoo kale xaaskiisa waxay ka xanaaqaysaa dagaalka oo mar walba ku jiro, naftiisa halista gelinayo oona ayada waqti siinin, balse waxaas uma qabanayo, uu kasii soconaya, hawshiisa ayuu kasii wadanaya. Wuxuuna ogaanayaa in qorshaha uu ka dambeeyey qof kale oo aanan meeshan ku ekeen. Waxaa arkana qofkii ka dambeeyey hawshan iyo qorshahan ninka uga halista badan oo aanan hadlin oo dadka si arxan-darro leh u dilo, waxaana lagu magacaabaa Abraar. Waxaa arkaynaa Abraar asagoo aroos ah oo iska baashaalaya ayaa waxaa loo soo sheegayaa in qorshihiisa uu fashilmay, sidoo kalena walaalkiisa la dilay. Xanaaq dartiis wuxuu arooska ku dilayaa ninkii warka u keenay, asagoo arooska ka dhigay meel wala dhiig ah ayuu arooskiisa sii wadanaya oo sidaas ayuu ku aqalgalayaa. Intaas kadib waxaa arkayna asagoo hal u dilaya dhammaan dadkii walaalkiisa hawsha la waday. Balbiir halista wuu ka badbaadaya, waxaana loo gelinayaa wadno. Waxaana u imaanaysa gabadhan, waxayna u sheegaysaa in wadnaha ku jiro uu yahay saaxiibkeeda, waxayna ku dhahaysaa aad ayaa ugu faraxsanaya inaa arka marlaba wadnahan oo shaqaynayo. Waxaana dejinayaa meel gooni ah asagoo la kulmayo, waxayna isla qaadanayaan jawi oo cirka ayay isla soo taabanayaan. Maalintii dambe ayuu hadiyad ahaan wuxuu u keenayaa gaari aad u qaali ah. Tii gaarigii usii socdeen ayaa hal mar gaarigii la qarxinayaa, kadibna gudaha ayay soo galayaan. Waxay u sheegaysaa in ayada tahay jaajuusad maadaama ay ninkan jecel u qaatay, waxayna u sheegaysaa wax kasta sida u dhaceen iyadoo wax walba u sheegayso. Waxayna u sheegaysaa wax walba iyo qofkii soo diray. Waxay kaloo u sheegaysaa inuu Abraar rabo inuu dilo dhammaan cidiisa oo dhan. Sababta uu dilayo waxay tahay cadowtinimo horey ugula dhexaysay familkiisa iyo familkaaga ayuu rabaa inuu dilo. Wuxuu tegayaa awowgiisa wuxuuna ka wareysanayaa cadowtinimadii hore ee labada famil. Waxaana loo sheegayaa inuu Abraar uu yahay wiilka adeerkiisa, qalada horey u dhacay oo uu tabanayo. waxaa lagu dhahayaa dagaalka meeshan ku joog oo iska cafi wiilka adeerka dhalay. wuxuuna leeyahay hadda anaga cafina asaga ayayna cafinaynin oona dilaayo. wuxuu weerar ku soo qaadayaa Abraar asagoo rabo inuu soo afjiro cadowtinimada muddada dheer qaadatay, maadaama ay tahay inuu hal qof dhinto labadan qof si ay u nabadgalaan. wuxuu soo galayaa gudaha wuxuuna dilayaa dhammaan ciidanka, balse Abraar waa nin hore u baxsaday oo ma joogo gudaha, wuxuuna waanjigayaa xaasiskiisa. ugu dambeyn mid ka mid ah wuxuu u sheegaysaa meesha uu ku sugan yahay. waxaa arkayna Abraar oo diyaarad sii raacayo, waxaana soo hor istaagaya Balbiir iyo ciidankiisa. Abraar markuu arka ciidamada wuxuu go'aansanayaa inuu baxo oo dagaalamo. dhanka kale Balbiir wuxuu arkayaa inuu ninka keligiisa yahay, wuxuuna go'aansanayaa inuu keligiisa la dagaalamo. ciidankiisana wuxuu u sheegayaa hadduu ninkan dilo xitaa inaysan dhaqaajin karin. dagaalkuna wuxuu noqonayaa maantumaan ah oo gacan ah, waxayna iskuga hor imaanayaan si kafool ah oona qof soo dhex galaynin. waxaana dhex maraya dagaal xayawaannimo ah oo aanan waxba la iskugu reeban, waxayna isdagaalayaan muddo aad u dheer. waxaana ugu dambeys guuleysanaya Balbiir, wuxuuna soo qabsanaya midi asagoo qoorta ka saaraya oo sidaas ayuu ku gowracaya oo meesha ayuu ku dhimanayaa. waxaa imaanaya guriga Balbiir oo wada mididii uu kusoo gowracay Abraar, wuxuuna aabihiis u sheegayaa inuu dagaalku halkaas ku dhammaaday. anigana waxaa kuu sheegaya inuu filimka halkan ku dhammaaday. haddaa weli janaalka subscribe iyo like saaran